بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد walaalayaal marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka labaad waxaan jeclahay maanta in aan idinla wadaago gabay afka ingiliishka ku qoran gabaygan waxa uu ku saabsan yahay isbedelka sida lagu helo iyo halka laga bilaabo isbedelka gabaygan waxaa la tiriyey waqti aad u fog oo 1100 sanadka markuu ahaa ayaa la tiriyey qofkii tiriyey lama yaqaano waxaan qoray gabaygan waqti sanad ka hor hadirtaan ayaan buuka akhriyay laakiin waa gabay xaqiiqdi xigmad weyn xambaarsan wuxuuna ku saabsan yahay sida aan sheegay isbedelka halka laga bilaabo waxaan maanta idinla wadaagayaa sababtu waxay tahay bulshadeena waa bulsho mar walba isbedelka jecel laakiin isbedelku in aan u diyaarsanaano ayaa muhiim ah marka hore sunnada ilaahayna waxay tahay isbedelka sida loogu talagalay haddii aan loo helin yacni isbedel miro fiican leh oo faa'iido leh ma noqonayo marka ma rabi in aan hadalka iyo hordhaca idinku dheereeyo laakiin waxaan rabaa in aad macnaha gabaygan aad ila socotaan daqiiqad ama 2 daqiiqo insha Allah waa dhameynayaa waxa uu leeyahay qofkii qoray gabaygan when I was young I wanted to change the world markii aan yaraa waxaan rabay in aan adduunka bedelo adduunka oo dhan inaan bedelaa rabay when I found I could not change the world I tried to change my nation markaan ogaaday in aan adduunka aan bedeli karin waxaan isku dayay inaan bedelo wadankayga dalkayga qowmiyadayda when I found I could not change the nation I tried to change my town markii aan ogaaday in aanan bedeli karin wadankayga waxaan isku dayay in aan bedelo magaaladeydii markuu uu ogaaday isbedelkii kow buu marka hore niyeystay laakiin uu ogaaday inaysan macquul ahayn radda magaaladiisu rabaa inuu bedelo uu sii wadaa wuxuu yidhi when I found out I could not change the town I tried to change my family markaan ogaaday in aanan bedeli karin magaaladii aan ku noolaa ayaa waxaan go'aansaday in aan bedelo aniga reerkayga familkayga ayaan go'aansaday inaan bedelo now as an old man hadda haddaan ka sheekeeyo anoo nin weyn ah I realize the only thing I can change is myself waxaan ogaaday waxa kaliya aan bedeli karo aan awoodo inaan bedelo nafsadeeda inay tahay and suddenly I realized that if long ago I had changed myself isla markiiba waxaan ogaaday oo aan xaqiiqsaday haddii aan waqti hore aan bedeli lahaa nafsadeeda I could have made an impact on my family waxaan saameyn ku sameyn lahaa reerkayga haddaan nafsadeeda ka bilaabi lahaa isbedelka dan waxaan markiiba saameyn lahaa reerkayga sababto iyaga dadka iigu dhow my family and I could have made an impact on our town reerkayga iyo anigana anagoo isla soconna waxaan isbedel ku sameyn lahayn magaalada aan ku noolnahay their impact could have changed the nation isbedelkooda ayaa wuxuu bedeli lahaa dalka iyo wadanka aan ku noolahay and I could indeed have changed the world saa daraadeed dalkayga marka aan bedelo iyo wadankayga adduunkana waan bedeli lahaa isbedelka jaranjaradiisa saas weeye ayaan dhexdaasna waan ka soo hadlay nafsadaada ka bilow cid kale ha ka sugin inaad bedeshid nafsadaada markii aad bedeshid si automatic ah ayaa waxa u bedeli doontaa reerkaaga caruurtaada qaraabadaada magaalada aad ku nooshahay dalkaaga iyo adduunka oo dhan markaas la dareemi doonaa insha Allah taala halkaas ayaan rabaa inaan ku ekeeyo casharkeena maanta waxaan jeclahay inta aan iskaga arki doono muuqaalka ku xiga inaad gaarsiisaan muuqaalkan dadka aad saaxiibada la tihiin dadka aad jeceshiin dadka as leedihiin way ka faa'iideysanayaan khayr badan baan idin rajeynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu